idilhaantiinba daawadayaasheeda sharafta karaamada iyo qadarinta naga mudanow halkani waa telefishinka caalamiga Somali Cable xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena xiisaa gaarka xambaarsanaa waa barnaamijkii la magacaabay kaftanka Somali Cable haddaba barnaamijka kaftanka Somali Cable waxa aalaaba su'aalo ku weydiinaa dadyoga kala duwan ku sugan magaalada Hargeysa annagoo mikrofoonka la dhex qaadna midna u weydiinaa su'aalaha soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga محمد فرحان اسماعيل بلا برشلونة waxaan galaa xadan khayriyada maxamed su'aashan ku weydiinaa waxa koranaysa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso waxaan ku xulanahay adu waa gabadha wayna dhar yar qurux badan gashanaata cabaayado kala dhaxdan wayna yaraata suwaana wayna gashanaata magaas ma aanu ka heli karaa intaas ma ka hadlaya wax kale ma weydiin aad ma santay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga محمد برre فوج عرب ليرا محمد su'aashan ku weydiinaa waxa koranaysa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso ama inanta aad nolosha la wadaagayso waxaan nolosha la waayay qof ay qanciyad aan ka helo weeyaan qofkii ay washaad ay markaan arto oo kale aan ka helo weeyaan inan ay qancisa oo kale weeyaan sifooyinkeeda wax nooga sheegi kartaa sifooyinka waxa weeyaan sifooyinka Ilaahay baa garanay anigu sifooyinka ma sheegi karayo laakiin waxaan anigu ku sheegaya inanta weynay qanacsan markii hore iyo soo horbaxaya oo markii soo horbaxay jiraya walaalo inaad maxaa sheegaysaa ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal waxa la Maxamed Jaamac Ali محمد su'aashan ku weydiinaa waxa koranaysa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso ama gabadha aad nolosha la wadaagayso walaal waxaan ku xulan lahaa taas way iska cadahayo haddii nugu islaam nahay nabigeena noo sheegay kaleey salaatu wassalaam waxa uu yiri dumarka afar ku xusha wali nasabiha wali jamaliha wali diiniha wali maxad casabataha afar taas ku xulanayso waa maalkeeda qabiilkeeda quruxdeeda iyo diinteeda waxaan noogu duceeyay nabiga kaleey salaatu wassalaam uu wali diiniha تدين ترى وكان waxaan ku xulan lahaa walaal walidiinaha marka koowaad ayada mahadsantahay walaal ugu horeyn ku soo dhawo telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal magacayga waxa la dhahaa Maxamed Rashid Maxamed waana ku dhawaay TV-ga waana soo dhaweynay maxamed su'aashan ku weydiinaa waxa koranaysaa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso diin iyo dabeecad iyo dad dhaqan ayaan ku xulan lahaa waxaan inta badan aan qiimeeyaa dumarka diinta leh kuwa kale oo ka boodaada ya asda adeed maasan soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal magacayga Khadar Xuseen Baleeda kowde su'aashan ku weydiinaa waxa koranaysaa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso horta markan gabadha doonayaan guursadaan baynaan la sheekaysto horta wajgeeda horta marka koodol iska eegaya kowde waa talabaad ee ugu wanaagsan la iska eegayo dabeecaddeeda samad garan markaan waxaan jecelahay inuu wanaagsan dabeecad fiican oo aad u wanaagsan kowde in badan oo soo sheegaystay in badan oo waan hayaa kowde maanta awlaadeeda dunida yaacaysaba alxamdulilah baan leeyahay oo ma jacaylkiina kuma khasaarintay kowde samad garan maanta inta la sheegaysanayaan guursanayaan jeclaa warta hal maal baan arki kowde maalinta arkay horta in way qenciso inantii waan jeclaaday laakiin wal sidaan u hadli kari waay hadaba garan waay inaan saaxiibnay bay la socdaan ku wareerde ina taasan jeclaaday waxaan sameeyaa aqul ilaahay af Soomaali ma ku aqul niyaar wallahi wartay ayna waxaan ku bilaaway walaal salaam alaykum walaal ii war walaal sameeyay khayr nabad way salaamto way ka qaatay kowde daadu markii daba waxaan ku walaal macaan arag baan kaaga fadhiyay bal ka waran marka waxay su'aalo badan bay weydiisay marka waxay su'aalo horta waxa laga fadhiyaa waa maxay dawlad naftaada u baahanay yaadu markii dambe la xaasil isfahamnay isjeclaanay alxamdulillah rabbil caalamiin kowde marka jacaylku horta dunia wax la iska yiraahdo ma hadde wax qalbiga ka soo baxay weeyaan samad garan marka waxaan kulay jecelahay makana inaynan bal jeclaaday inantaasina horta wallahi horta magaalada ma joogto
laakiin way geeri fogta kowdhe iminkana hadday maqlaysaan bay iga daawanaysa bartaa habeeniyo maalin waxaan leeyahay inaad roon ku jecelahay iga gaarsiiya farintaa yaa magaceedana ma sheegaynaad kowdhe deeqaluula la hedhaynaad kowdhe markaa deeqa hadday maqlayso هذا ما صدق. سو ولا تلفزيون كعالمي سومالي كيبل يقول برنامج كيسي كفتك سومالي كيبل أديكو كبلا بيا مقعاقة. المقعاق وان يا الله يسر حسين محمد. أيلو سؤال كوي الدنيا ديار موتاي. طبعا. سؤال كوي الدنيا حكونا سيالنا. سفن نوعي أهيت كحنا الله هاي. قفك أبنولوش اللي وداقيسو. ما شاء الله والسؤال هذه دور توفي عن سويدين مضان. دورت عنو مال هرنا هالكم وجه الله وحنا عينين قرايا. ninka qoraagiina de kulley shimbirkiisu la duulaaya Soomaalidiina de imtixaan bay Soomaalida hore wax kasta way sheegeen marka waxa shimbirkiisu la duulaa marka hadaanu inan qoraaya uma de nolosha la wadaag lahaa oo ku dooran lahaa sifadeeda qoraalnimo ayaan ku dooran lahaa taa nolosha la wadaagayo midda kale de maadaama aan ahay qoraaga maanta qoraa ka duwan halka waxaan dooran lahaa de inan qoraaga maanta qoraa ka duwana ayaan ku dooran lahaa sababtoo aanu waxaan qoraaga maanta qoraa ka duwan inantan de guursanaya ama nolosha la wadaagayna de waxaan ku dooran lahaa qoraaga maanta inay qoraa ka duwan ahaato هذا يضم هالسنتين كسر ولا تلفزيون كعالمي سومالي كيبل يقول برنامج كيسي كفتك سومالي كيبل أديكو كبلا بيا مقعاقة واي والله لو كده وين مقعاقة أحمد ناصر حسوي أحمد سؤال شو كويدينا وحكي قرن ساعة سفن نوعي أهيت كحولان هاي قبل ده أتقول سنيسو إن بعديها ذاك صاع يارسو أيام كحول لانو oo disiyaar oo iska gaagiiso ayuu ku soo la waayo heerade naagta demarku inay ka taqaan ma garaysa arooskana dadku soo raasoo qaadanayaan waxa weeysaas ku soo la warka markaas soo soo la intaas ayad ma haysatay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Soomaali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Soomaali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal waan dhawahay magacayga loo leeyahay Cabdiqani Axmed Cabdi oo ku nool xaafadda Axmed Dagax Cabdiqani su'aashan ku weydiinaya waxay ku oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xunan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso ama qofka aad nolosha la wadaagayso walaal waa sax qof walba wuxuu jecel yahay qof wanaagsan inuu helo mar kasta amba uu qof u helo dee wanaagsan oo nolosha la qaybsado inkastaan anigu xunan la deena wanaagsan oo diinta islaamkana magaraysa ay haysata qof islaamana ah oo diinta islaamkana ku xidhan ayaan anu ku xunan la shakhsi ahaantay aan qabaarayaan aan ku odhan la walaal aad ayaad mahadsantahay kusoo dhawaada telefishinka caalamiga Soomaali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Soomaali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu walaal waa Cabdisalaan Axmed Maxamed Cabdisalaan su'aashan ku weydiinaya diyaar ma u tahay awan diyaar baan su'aashan ku weydiinaya waxa ka Cabdisalaan sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso sifa noocee qofku goor Soomaaliyeed dabeecad yarta ana dabeecad yarta intaas ma nayaa wax kale weydii bas هذا يضبع صدق كسر ولا تلفزيون كعالمي Soomaali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Soomaali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga aad iyo aad mahadsantahay waan soo dhawahay magacaygu Maxamed Amar Cabdullaahi Maxamed su'aashan ku weydiinaya diyaar ma u tahay diyaar baan ahay fikradeeda waxay la doontaa ha noqotay su'aashan ku weydiinaya waxa koonaysa Maxamedow sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso horta bilaadanka nolosha way badan tahay markeeda hore marka laga sheekeeyo nolosha bilaadanka sida qalgacalka bilaadanka jacaylka way badan tahay sida xadiiska quraanka nooga sheegana ixtiraam aayaadka quraanka nolosha aad datisid farxad oo aad ku noolaatid inaad maxaa naftaada aad soo dhistid your idea your beliefs in soo hagaajid inaad soo dabartid asalba marka laga sheekeeyo nolosha dadka tilmaamo badan bay qaataan imiga aad bulshooyinteena waxa marka fikradaha la soo ururiyo waxa oranayaan waa qalgacalka amba waxa la yaqaan jacaylka amba ay oranayaan asal nolosha hadda jacayl amba qalgacal u baahan tahay amba degnaan u baahan tahay waa inaad niyad furan iyo qalbi furan gacmo furan samaysata عندك بعد لما حسب بحياة إن هذا متحد كودكتو أديكو إلهي كحران هذا المج إلهي كحران تها بحول بكوفد ذانيا طريقة ودك تجاد مرة سنة إلهي بكوفد ذانا لكن تد أتتجنا إلهي كحران توضيح بقى مشهور تقول بس لكن أنا قلنا ولا شو حكى مثلا هذه قمر كور إلهي كحران كو
oo wax walba lagu waajibiyo aad qabatid kadib waa inaad muxuu ahaa nolol maalmaadkaaga inta dadka hunguriga jecel yihiin muxuu ahaa haddana jacaylkooga dadka imika adigu waalidkaaga kala faraftaanbal waxaad ku jokornaysaa ku baranaysid si aad yaa noloshaada iyo haastaankaaga adigu u dabir lahayd haa markaan nolosha waxaan ka aaminsanahay farxadii guud aad ayadu mahadsantahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga walaal waan dhawahay magacayguna Xabiib Cabdi Maxamed xabiib su'aashan ku weydiinay waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad guursanayso waxaan ku xulan lahaa inay heludin tahay inay xijaaban tahay inay gabadh asturan tahay laakiin yar baa ku hoos jirta waxa fiicnaan lahayd inaan maalin arki lahaa iyadoo sidaada u libis si aan ugu qanco xubnaheeda qayb ka mid ah adeed baasada ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga wad maasatay magacaygu waa Muwaari Nuur Diiriye Cismaan Muwaariga su'aasha ku weydiinaya diyaar ma tahay طبعا نسku day insha Allah su'aasha ku weydiinaya waxa ku dhashay Muwaarigow sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso bismillaah adoo dabeecadaha dumarka lagu xushaad bay fara badan tahay insha Allah laakiin waxaan ku xulan lahaa inay diin iyo dhaqan suban lahaato taa ka dhigo saawiyaan aad ayadu mahadsantahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Abdi Axmed Umar Abdi su'aashan ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso sifada lagu doorto oo iska fara badan oo mid dabeecadeeda lagu doorto iyo mid quruxdeeda aad doorato oo ta doorato ma alla kula kulmiyuba ayuunbad heli marka waa si aan yiraahdo aan kaga jawaabo garma taa sifa ma shay lama sheegi karo waayo taad jeceshay ma kula kulmi karto tii wad waayi kartaa adoo jecel dabeecadeeda jecel mid adigu sifa aad jeceshahay qofka nolosha la wadaagto inuu yeesho ma jirtaa haa dabeecadda horta dabeecadda wanaagsan oo aan aan jecelo iyaduna sidaydoo kale jecel baa qancinaya aniga aad ayadu mahadsantahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga ku dhawaada aad baad mahadsantahay magacaygu waa Liibaan Xasan Cabdi ku nool magaalada Hargeysa liibaan su'aashan ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd gabadha aad nolosha la wadaagayso wallahi su'aashaas horta waa su'aal aad u qiimo badan gabadha nolosha la wadaagayo waxaan ku xulan lahaa marka horeysa diinta inay qof diin la tahay dan inay qof dabeecad la tahay oo dabeecaddu waa waxa ugu qaalisan saddexaad inay qurux badan tahay qof shidan ay tahay sanadadan dambe habluhu waxay iyaguna yiraahdaan qof la raadinayaan qof romantic ah moogta marka qof romantic inay tahay oo nolosha wax ka fahmayso oo garanayso oo iron ma garanayso ayaan ku xilan lahaa marka intaas iyada inay qof raaliya ay tahay marka intaas aan ku xilan lahaa aad ayaad mahadsantahay baan ku leeyahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga Cabdisamed Cawl Xasan Cabdisamed su'aasha ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso qof nolosha la wadaagayo waxa qof walba dooq buu leeyahay Soomaha qofku dooqayga noqdo baan nolosha la wadaagaya ma shaacirku ay kalo noocaas kale weeyo noocaas kale weeyba reesa marka aad ayaad mahadsantahay waan ku leeyahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga Cabdirasaaq su'aashan ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso kullu waxa laga yaabaa qofka waxa ku dhig in kullu siyaabo way badan yihiin yani qof sidaada dadkii jacaylka kala oo ku xulan karaa bilad ya marka adiga laftaadu deegaanka dadka qodobada laftooda kuwa yaraha liska inaad weydiiso ma hadee halka lafteeda waxa ku leeyahay heerka ka yar dhaqaaq ya adeed mahadsantahay ku soo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu Cabdicasiis Maxamed Xasan Cabdicasiis su'aashan ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifa noocee ah ayaad ku xulan lahayd
qofka aad nolosha la wadaagayso waxaan ku xidhan lahaa qof dhaqan oo diin la dee oo iga raaliyo dee dookhaaga aad nolosha la wadaagsadii macaan caqabadaha kula fahmayo dee aad jeceshadii qof walba dookhiisa dookhina u kala cajiib badiyey taasna ku xidhan lahaa dee assalaamu calaykum kusoo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo wali barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal wandhawahay aad baad u mahadsantahay magacayga waxa la yiraahdaa Haldoor Maxamed Ibraahim Boone Haldoor Maxamed su'aasha ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso sifan waxaan ku xulan lahaa markoobaad diin dhaqan wanaagsan iyo qurux intaasan ku xulan lahaa runtiina dee waxaa mar haddii aynu nahay dad islaama marka koowaad qofka aad nolosha la wadaagaysa waa inaad ku xulataa diinta iyo kitaabka inta uu kaga jiro mar labaad habdhaqankiisa nololeed hadduu wanaagsan yahayna waa inaad wanaagga u sii raacisaa hadduu xun yahayna waa inaad dhiirigelisaa si u wanaagsanaan lahaa mar saddexaadkana dee waa kitaabkaaba sheegay saddexdaa qodob oo xitaa qurux baad ku geli karaysaa intaasaan kusoo koobaya walaal kusoo dhawaada telefishinka caalamiga Somali Cable iyo wali barnaamijkiisa kaftanka Somali Cable adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu walaal aad baad u mahadsan magacaygu waxa weeyaan Cabdilaahi Isbitoora Naana Cabdilaahi su'aasha ku weydiinaya waxa ka oranaysaa sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso qofka nolosha aan la wadaagi lahaa waxaan ku xulan lahaa inay qofku qof diin leh uu yahay wanaagsan dabeecad iyo quruxda meesha kama marna waa intaasaan ku xulan lahaa qof ma garanaysaa hagaagsan ina soo duceeyno ilaahay saalade aad mahadsantahay intaasi daawadayaasheeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan oo waxaynu ugu soo dhamaaday barnaamijkeennii xiisaha gaarka ah xambaarsanaa oo barnaamijkii la magac baxay kaftanka Somali Cable barnaamijkeena kaftanka Somali Cable su'aashan maanta dadweynaha weydiinanay ayaa waxay ahayd sifo noocee ah ayaad ku xulan lahayd qofka aad nolosha la wadaagayso barnaamijkeena daawadayaal maanta uu ka xiisad iyo xamaasad badnaa barnaamijyadeennii hore ee halka ka dheehan jirteen haddaba intii barnaamij xiga ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan barbaartii Somali Cable oo isku duuban waxaan leenahay dhammaantiin iyo dhammaantayo isma dhaafno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh